waad salaamantiin dhammaantiina ku soo dhawaada kanaalkan Engineer Cali Maamuud. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ha ilaawin inaad subscribe saarto, in aad muuqaalka like garayso, la sii wadaagto asxaabtaada. muuqaalkan waxba ha ka garan bilis. maantay waxaan ka hadli doonaa mowduuc run ahaantii noloshaada wax badan ka bedeli kara. haddii aad raadinaysay in aad hesho ama inaad kordhiso isku kalsoonaantaada, inaad hagaajiso isdhexgalkaaga bulsho, iyo sidoo kale inaad ku guulaysato soo bandhigistaada fikradahaaga ku gaarka ah, muuqaalkan waa muuqaalkaaga. ka hor intaanan u gelin muuqaalkan, waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo muuqaalkii horreeyay qaabkii wanaagsanay oo u like garayseen, u share garayseen, markaas aad meel dheer u gaarsiideen, sida quruxda badan oo channelkeena aad ugu soo biirteen. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ku soo dhawaada maantay iyo muuqaal cusub. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida ciwaanka muuqaalka hadda aad daawanaysa aad ka soo aragtay. waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo confidence ama kalsooni. muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago maxay tahay kalsooni iyo adiga laftirkaaga waxaa ka aaminsan tahay inaad ogaato. sidoo kale waxaan kugula wadaagi doonaa ama aan kuu sheegi doonaa waxyaabaha ama sababaha ay nolosheena guud ahaan ay muhiim ugu tahay kalsoonida. sidoo kale waxaan ku sii doonaa talooyin iyo tallaabooyin aad ku dhisi karto kalsoonidaada. iyo ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. kalsoonidu ma ahan inaad isla weyn tahay, inaad u malayso inaad ka sarreyso ama aad ka fiican tahay dadka kale. kalsoonidu waa inaad aaminto awoodahaaga, inaad isku kalsoonaan tahay ama aad haysato awood iyo kalsooni aad uga hortegi karto challengeska iyo caqabadaha noloshaada kusoo wajaha. kalsoonida waxaa la yiraahdaa waa wax inside oo gudahaaga ku jira. waa cod ku dhahaya mar walba I can do this, midaan aniga waan samayn karaa. I can do this codkaas ku dhahaya inaad banaanka u soo saarto. din banaanka iyo dadka mucaamalaadka iyo dadka aad dhaqmi lahayd aad kula dhaqanto ayaa waxaa la yiraahdaa markaasi confidence. waxaan rajaynayaa marka inaad waxa confidence u taqaanay iyo sida hadda aan kuu sheegay inaad kala fahamtay. haddaba maxay kalsoonida ama confidence-ga in aan markaasi la dhaqankii dadka aan ku dabaqno ama nolosheena aan ku dabaqno ay muhiim ugu tahay. haddii aad doonayso markaasi inaad noloshaada horumar aad samayso, qaybo badan oo nolosheena ka mid ah waxaa ka qayb qaato oo door weyn ka ciyaara kalsoonida. haddii aad doonayso inaad noqoto qof risk taker oo khataraha u bareera, haddii aad doonayso inaad noqoto qof ka faa'iideysta opportunities-ka iyo fursadaha agagaarkiisa yaala, haddii aad doonayso inaad noqoto qof decision maker oo go'aanada qarar qaadan kara, you have to be confident person when aad tahay. waa inaad tahay qof isku kalsoon oo markaasi self confidence dareemaya, oo haddii dadka caayaan, haddii lagu mucaarado, haddii dad kale wax ka dhahaan, haddii lagu diido, he don't care about that, oo dhahaya wax shaqa markaas aniga iga galay ma jirto arrintaasi. kalsoonida noocaas marka in aad haysato waxay ka saacidaysaa inaad noloshaada from zero to high level inaad markaas aad gaarsiin karto. haddii aad raacdo tallaabooyinkan shanta ah oon hadda kuu sheegi doono, noloshaada waxaad dhisan kartaa markaasi kalsooni aad markaasi kaga kaaftoomaysid dadka kale afkaarahooda inaad dhagaysato oo markaasi negative-ka inay ku niyad jebiyaan, waxyaabahaas oo dhan aad ka kaaftoomaysa haddii aad kalsooniga dhisato. tallaabada koowaad oo kalsoonidaada ku dhisi karto waa inaad samayso more practice oo self caring, inaad noloshaada ka taxadirto, in aad markaasi ilaaliso caafimaadkaaga jireed, caafimaadkaaga maskaxeed inaad ilaaliso, in aad ilaaliso aad ka taxadirto oo aad cunto caafimaad leh, in aad seexato xilli hore, in aad yeelato waqti nasiino. tusaale 7 maalmood haddii qof shaqeeya aad tahay, waa inay jirtaa maalin 7daas maalmood ka mid ah oo aadan waxba qabanin, oo aad qabato naftaada iyo noloshaada waxyaabaha ay jecel yihiin, inaad nasato, inaad maskaxdaada dejiso. waxaa la yiraahdaa the more aad dareemaysid caafimaad jireed waa the more aad dareemaysid caafimaadkaaga maskaxeed ama mental health-gaaga u wanaagsanaado. qodobka labaad oo aad kalsoonidaada ku dhisi karto waxaa weeyaan in aad dejisato yoolal, ahdaaf ama goals oo aad si fudud markaasi ama aad gaari karto waqti walba, waqtigii rabto ha ahaato. ahdaaftaada ama goalskaaga waxaa laga baahan yahay inaad u kala jejebiso kuwa yaryar oo la gaari karo. mar walba oo aad one step forward aad ku guulaysato waa inaad naftaada markaasi aad siisaa reward, inaad amaal mariso haba yaraato stepskaasi. maxaa yeelay taasi waxay ka caawinaysaa markii aad tusaale ahaan intaad ahdaaf ama long term goals ama goolal dheer inta dejiso, aad short term goals u kala jejebiso, aad one goal oo kamida goolashii ku gaarsiin lahaay hadafkaaga fog aad gaarto, aad naftaada amaal mariso, wax ay jecesha aad u samayso, maalin fasax aad siiso, relaxation haday rabto, haddii jiif rabto, haddii telefoon inay daawato ama isticmaasho rabto, haddii rabto inay game dheesho kale, adiga wixii markaasi aad naftaada u aragto inaad ku amaal mariso oo kale wanaagsan inaad ku amaal mariso. waxay ka saacidaysaa in aad hesho dareenka ah markaasi in aad tahay qof finisher ah, in aad tahay qof dhammaystiri kara howlaha oo bilaabay. helitaanka dareenkaas aad helisid ayaa wuxuu dhisi doonaa kalsoonidaada ah in aad tahay ama aad leedahay awood aad ku dhammayn karto howlo walba oo markaasi aad bilowdo. qodobka saddexaad oo aad kalsoonidaada ku dhisi karto waxaa weeyaan in aad challenge ku noqoto ama
aad ka soo horjeesato noloshaada aad ka saarto fikradaha xunxun ama negative thoughtska ama fikradaha xunxun oo noloshaada dib u dhigaya dadka kugu hareeraysan waxyaabaha markaasi negative-ka kuu sheegaya waa inaad noloshaada ka saartaa mar kasta oo aad dareento liidnaan mar kasta oo aad dareento oo aad aragto inaad ku fikirayso fikrada xunxun in aad markaasi dareento niyad-jab in aad dareemayso in dadka kale ay kaa sareeyaan waa inaad joojisaa fikradahaasi xunxun u bedel fikrada wanaagsan oo positive ah arrimahaas markay ugu dhacaan waxaad xasuusataa xoogaaga iyo awoodahaaga Ilaahay ku siiyay iyo guulahaagii hore xasuusnaanta aad xasuusto guulahaagii hore iyo ahdaaftaadii hore aad ajiif garaysay oo aad gaartay waxay ka caawinaysaa inaad dareento motivation iyo dhiirigelin markaas aad ku qabato qodobka afaraad oo aad kalsoonidaada ku dhisi karto waxa weeyaan learn and improve inaad samayso in aad sii wado waxbarashada inaad siyaadiso horumarinta xirfadahaaga the more shaygan aad qabanaysid aad aqoon badan u leedahay waa the more aad dareemaysid confidence aad u muuqanaysid qof markaas isku kalsoon banaanka markii laga arkayo in aad badiso aqoontaada in aad badiso xirfadahaaga waxay ka saacidaysaa in aad markaasi hesho kalsooni qodobka shanaad oo aad kalsoonidaada ku dhisi karto waxa weeyaan in dadka ku hareeraysan dadka xayndaabkaaga ah in markaasi aad ka dhigto dad wanaagsan oo negative thoughts dhan aan ku fakareynin dad ku caawinaya dad ku dhiirigelinaya dad ku suura gelinaya in aad gaarto ahdaaftaada dad u wada fakaraya qaab positive ah dad aan markaasi negative thoughts ama fikrada xunxun oo negative ah aan markaasi aan ku sheegaynin tusaale markii aad qorshe ama plans u soo bandhigato dadka ku tusaya wada walba oo san shaygaasi kuugu suura gelinin dadkaasi waa dadka laga rabo in aysan nolosha ku hareeraysnaanin ee aad ka saarto noloshaada waxaad ku hareeraysaa dadka markaad qorshayaashaada la wadaagto ku caawinaya ku dhiirigelinaya talooyinkaas siinaya yes keep going ku dhahaya oo aan markaasi negative thoughtska iyo wadooyin kasta aysan kuugu suuragelin kuu sheegaynin kuu sheegaya kaliya wado walba markaasi uu sheegan kuugu suurageli karo kalsoonidu ma ahan waxa aad dareemaysid kaliya ee kalsoonidu waxa weeyaan qaabka aad u bandhigaysid nafsadaada qaabka aad u isticmaalaysid qaabka aad u istaagsan tahay qaabka aad qofka ula dhaqmaysid oo aad u fiirinaysid oo aad ula sheekaysanaysid in aad si cad markaas uga hadli karto waxyaabaha ama waxaad raalli ku tahay iyo waxa aadan raalli ku ahayn luqadaada jireed ama waxa loo yaqaan body language waxa aad iska aaminsan tahay waxa ugu muhiimsan oo markaad qof la sheekaysanaysid ama aad qof la hadlaysid in laga helo ay tahay waxa weeyaan eye contact inaad qofka indhaha ka fiirisid Allah subhanahu wa ta'ala ayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay wala tusa'ir khaddaka linnaas wala tamshi fil ardi maraha qofka marka la hadlaysid dhamanka ha xijinin ee waxa xijisaa labadaada indhood dhegayso dhuux waxa uu ku dhahayo adiga markaasi hadii aad tahay marka ama aad leedahay awood qofku marka wuxuu ku sheegay inaad indhahiisa fiiriso oo indhahaaga ku fiiriso oo ka jeesanin waxa tahay qof leh confidence ama kalsooni waxa tahay qof isku kalsoon oo confidence iyo isku kalsooni nafeed leh sida kalsoonida nafta waa safar waa waxa aan dhamaanteena ka shaqeynayno maalin walba bilaab maantay in aad hirgeliso talaabooyinkan si aad markaasi u dhisato naf leh kalsooni ay wax ku qabsan karto hadaba haddii muuqaalkan uu ka caawiyo la sii wadaag saaxiibadaada kalsoonida qaybta faaladana waxaad noogu reebtaa wadooyinka iyo dariiqooyinka stebiska aad isticmaasho si aad u dhisto kalsoonidaada muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa inoo balana waxaan kaga tegayaa salaam